madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waxa uu maanta kulan muhiim ah la qaatay barsaabada gobolada dalka. Kulankaasi waxa uu ahaa mid isxog wareysi ah laguna dardargelinayo nidaamka dowladnimada, xoojinta nabadda, bixinta adeegyada bulshada iyo sidii wax looga qaban lahaa arrimaha mudnaanta u leh qaranka oo ay wadajirka iyo walaaleynta bulshadu saldhig u tahay. qodobada muhiimka ah ee kulanka laga wada hadlay waxa ugu mudnaa amniga iyo xasiloonida gobolada dalka, horumarinta dhaqaalaha iyo maalgashiga gobolada, kubcinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada ee gobolada, u diyaargarowga aafooyinka iyo gurmadka abaaraha, maamul wanaagga, daahfurnaanta iyo la shaqeynta qaybaha kala duwan ee bulshada. madaxweynuhu waxa uu gudoomiyaasha gobolada u sheegay in walaaleynta iyo midnimada ummadda reer Soomaaliland adkeynta nabadda iyo xasiloonida ay tahay muhiimadda koowaad ee xukuumadda wadajir iyo waxqabad. madaxweynuhu waxa uu gudoomiyaasha gobolada u sheegay in xilka iyo mas'uuliyadda uu igmaday ay ka wakiil yihiin isaga madaxweynaha, sidaa darteed gudoomiyaasha looga baahan yahay in bulshada ku nool gobolada ay dareensiiyaan in xukuumadda wadajir iyo waxqabad ay tahay xukuumadoodii. ugu horeyntii kulankaasi waxaa hadal ka soo jeediyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga dalka Cabdalla Maxamed Carab. mudane madaxweyne yaroo warbixin haddaan ka bixiyo gudoomiyaasha halkan fadhiya intii aad magacowday muddo yar bay ahayd. runtii waxaan uga mahadnaqayaa gudoomiyaashu muddada ay magacownaadeen ee yaray joogeen wada shaqayntan wada shaqaynaynay inay yihiin rag aad iyo aad u qiimo badan. xiriirkooda waxay qabteen hawsha markaa u taallay. xukuumaddeenu waxay la bilowday hawl aad iyo aad u adag weliba xagga nabadgelyada inagoo markaa ku sugnayn duruuf dhaqaale oo dhaqaale xumo waddankana inagu nimin ayaa haddana nabadgelyo badani darro badan ay nagu abuurantay. gobolladu ha isdhaamaan oo ha ugu hawl badnaato gobollada bariga iyo gobolka hawd, haddana kartida ay leeyihiin iyo aqoonta ay leeyihiin iyo way aragnimadooda waxaan uga mahadnaqayaa inay shaqo wanaagsan muddada ay qabteen. madaxweyne waxaan kaaga mahadnaqayaa raggaad soo xusay waa rag xula oo aad xulatay waa hawshooda ka adag ayaan markhaati maanta halkan uga furaya. waxaana rajaynayaa fariinta ayada daaranka aad fartay inay yihiin rag ku filan. ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waxa uu gudoomiyaasha gobolada dalka ku dardaaray in waajibaadkooda shaqo ay u gutaan si hufnaan iyo hagar la'aan ah, sidoo kalena ay fuliyaan himilooyinka iyo horumarinta ay hiigsanayso xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland. dawladdu waxay ku suutan tahay wax mid wadajir iyo waxqabad. marka horumarintu ama horumarku gobolku waa muhiim inaynu siino muhiimad weyn dhammaan sidii gobolku ugu horumari lahaa. waxaa kaloo aynu dadka u ballan qaadnay dowlad wanaag. marka dowlad wanaaggii inuu inaga muuqda haddii ilaahay ka dhigo. waxaa muhiima oo qarankana muhiim u ah inaynu horu soconnana muhiima waa ammaanka, nabadgelyada oo shaqada koowaad ee barasaabku ay tahay. marka ammaanka gobolkuna iyo qaybaha kale muhiimka idinkala shaqeynaya ammaankaba iyo iskaashigiisuna waa muhiim. waxaa kaloo muhiima inaad hubisaan dadka waxaynu soo ballan qaadnay adeegyada inta badan waxaa ka mas-uula wasaaradda, dabagalka wasaaradana idinka ale. wasaaraddii wakiilkii ka joogay ama isuduwihii sidii loogu adeegayaa sidii sax ahayd dadka. wasaaraddu doonaba ha joogo. marka taana waxaa ku leedahay kormeer iyo dabagal in adeegyadii dowladdu ay si wanaagsan u socdaan. horumarinta dhaqaaluhu muhiim buu inoo yahay. dhaqaaluhu intan waxaynu ku shaqeynayno budgetku waa muhiim inaynu hubino wasaaraddii maaliyadda in laga caawiyo sidii ay cashuuraha usoo ururin lahayd, gacanna laga siiyo si aynu markaa u helo xitaa mushaharooyinkeeni iyo adeegyadii kale ummadda aynu qabanaynay. maanta dunidu waxay
isku raacsantay deegaanku ama isbeddelka cimiladu inay tahay waxa ugu muhiimsan oo wax kasta waa lagu qiimeynaya marka environment friendly haddaad istiraahad darlis dunida waa la isku qabsanayaa environmentka maxay dhib u keenaysaa baa la odhanayaa dhulkeenna wuu abaaroobay berigan yaryarayna miyigaan u bixi jirro dhulkii aanu kayma wada ahaa maanta waa wada ban ama xaabaa laga shitay marka deegaankana inaynu wada ilaalino muhiim bay inoo tahay kelimada dardaaran umaan idin odhanayaa ay ugu muhiimsan tahay bulshada haddee gobolka ama mas-uul ka tihiin inaad dhegaysataan tabashadooda kala shaqaystaan xalinta dhibaatooyinka inaad ka dadaashaan inay isku xidhnaato dowladda iyo shacbiga gobolka aad mas-uul ka tihiin in shacbigu uu helay adeegyadii dee dowladda ay ka filayeen iyo in degenaansho iyo nabad uu gobolku had iyo jeer uu ku sugnaado inaan inta dhibtu dhacayso la sugin laakiin inta badan ka hortag ayaa muhiima caqabadaha iyo dhibaatooyinka yaryar ee keeni kara in dhib weyn dhacana la xalilo oo si idinkoo la kaashanaya dee deegaanka haddii la yidhaahdo la shaqaynta dadka gobolka hadday yihiin odayaasha ganacsatada ururada bulshada iyo dhammaan hay-adaha dowladda si ay idinku fududaato fulinta waajibaadka laydinka filayo muwaadiniintu waxay naga filayaan inaynu si siman ugu garsooro ama ula dhaqano waana sidii dhici jirtay aynaan u kala soocin mucaarid iyo muxaafid ama xisbiga dowladdu taageersan yahay ama uu ka soo horjeeda dhaqankaa waynu bedelaynaa waa inuu qofku muwaadinkii uu dareemo inay madaxdiisii nahay inaynu mas-uuliyiintiisii nahay in muwaadinku uu dareemo inaan shaksi ahaan iyo abtirsiim ahaan iyo xisbi ahaan iyo siyaasad ahaan midna aan lagu dee takooreynin waxaan kaga tegayaa un mustaqbalka somaliland wuxuu ku xidhan yahay hoggaaminteena iyo sidaynu u hoggaamino sidaynu isugu xidhnaano sidaynu u shaqayno taasaana keeni karta isbeddelka aynu dadka u ballan qaadna inuu hirgalo waan aaminsannahay isku duubnideenu oo maadaama idinkuna dee matelaysaan xukuumaddii dhexe iyo madaxweynihiiba inaynu aadna isugu xidhnaano aynu wadajir u shaqayno si aynu u helno somaliland midaysan barwaaqo ah oo nabad buuxdeeda haysata adduunka guud ahaan somaliland maanta wuu danaynaya laakiin waxay ku xidhan tahay kolba sidaynu u shaqayno inaynu xoojino waxyaabaha nalagu danaynaya waxaa kow ka ah nabadda iyo xasilooni siyaasadeed waxaa ka mid ah doorashooyinka joogtada aynu qabanayno waxaa ka mid ah inaynu nabad doonayno markii adduunku wuu soo dhiiranayaa maalgashigu wuu inoo imanayaa dowladuhu way nagu soo xidhmayaan waxaan idinku bishaareynayna safaradii aanu tagnay ugu dambeysay in adduunku aanu idin xaqiijinaynaa in adduunku somaliland maanta wada danaynayo dano badanna aynu isdhaafsan karno marka inaynu soo jiidano dadka shaqadeennay ku xidhan tahay sidaynu uga shaqayno deegaanadeenna sidaynu u nabadayno siyaasadda dowladdu waa nabad waxaa kaloo dee dowladda waajibku ah inay qarankeeda iyadana diyaar u tahay inay difaacdo mushtaaq cabdinuur warbaahinta qaranka jamhuuriyadda somaliland